muuqaalkan uma haboono qofkii ka yar 14 sano amba ay da'diisu ka hooseyso. Fadlan isdhaafi haddii aanad gaadhin 14 sano. Sidoo kale ha ku ag daawan qof ay ka yar tahay da'diisu 14 jir amba ilmo carruur ah. Muuqaalkanna waxaa ku jira waxyaabo badan oo khatar ah oo aan loogu talagelin qof ay maskaxdiisu aad u hooseyso. Sidoo kale muuqaalkan carruurta uma habboona, waana sababta dunida looga qariyay. qaybihii ugu horreeyay ee musalsalkan waxaa la soo daayay sanadkii 1940 kaas oo talantaali u soo socday ilaa iyo waqtigan aynu ku soo gaadhnay. musalsalkan waxaa la soo saaray 164 xalqadood. 164 xalqadood 35 xalqadood oo ka mid ah waa kuwa dunida oo dhan laga madnuucay in laga daawado. qof yar iyo qof weynba 35 xalqadood looma ogolayn inay daawadaan sababo la xiriira inay muuqaaladan yihiin kuwa aanu fiicnayn inuu qofna daawado, waayo muuqaaladan waxaa ka soo muuqday muuqaalo aad u dhaqan xun, muuqaalo siyaasadeed iyo sidoo kale muuqaalo cunsurideysan oo cunsurida iyo midabka lagu gudbinayo. haddaba muuqaalada halkan ay ku arki doono waxaynu ku soo gudbin doonaa 3 muuqaal amba 3 xalqadood oo dib loo helay kuwaas oo Tom and Jerry lagu soo gudbiyay. 3da muuqaalna ay aad ugu xun yihiin caqiido iyo caqli ahaan iyo carruur ahaanba. haddaba muuqaalkan ayaynu ku arki doonaa 3 xalqadood oo ka mid ah 35 muuqaal ee Tom and Jerry ku saabsan ee dunida laga mamnuucay in laga daawado. 3 qaybood halkan ku arki doono 3 qaybood way kala dareeyeen. sidoo kale waxa ugu daran qaybta ugu dambaysa. haddii uu qalbigaagu jilicsan yahayna kuma fiicna inaad qaybta saddexaad nala daawatid. haddii aad nala soo daawatid labada qaybood hore ka hor intaynaan muuqaalkeena guda gelin, way fiican tahay inaad muuqaalkan like saartid. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad subscribe dhahdid si aad ula socotid waxyaabaha kale ee aynu halkan soo gelin doono. xalqadan magaceeda waxaa la yiraahdaa Henfield Bones. ugu horreyntii waxay ku bilaabmaysaa Tom oo Jerry eryanaya kaasoo sijaayada kaabada la saaro kasoo jiidaya. kadibna Tom waxaa kusoo dhici doonta biyaanada la garaaco. kadibna Tom wuu dhiman doonaa. kadib markuu Tom dhinto waxaa ka bixi doonta ruuxdiisa waxaana u kici doonta xaggaas iyo samada iyadoo raacaysa jaranjaro. kadib markay jaranjarada raacdo Tom wuxuu tegi doonaa toos jannada ayuu tegi doonaa kadib markuu samada dhaafo. kadib markuu jannada tago wuxuu oran doonaa Tom jannada toos u gal, laakiinse gaadhayaha jannada amba qofka ugu horeeya ee samada albaabkeeda fadhiya ayaa u diidi doona inuu galo. waxaanu ku oran doonaa waxa lagu haystaa qaladaadkii iyo gafafkeed u geysatay Jerry, waa inaad waraaqadan qaadataa kadibna aad Jerry u tagtaa cafisna ku soo dalbataa halkaana ku soo saxeexa. kadib markaas ayaad jannada gelaysaa. haddii uu Jerry ku soo saxeexi waayo waraaqadan waxa lagu geyn doonaa naartii, halkana waxa ka dhigi doonaa naartii taas oo uu dhex joogo Iblis. soo kale waxa garaaci doonaa malaga naarta. kadibna markuu garaaco wuxuu oran doonaa malagaas ayaa lagu geyn doonaa haddii aanad Jerry ku soo cafiyin. Tom ruuxdii ayaa dib ugu soo noqonaysa kadibna wuxuu isku dayi doonaa inuu Jerry cafis weydiisto. muddo badan oo uu la rafaadayo ugu dambeyn wuxuu isku dayi doonaa inuu Jerry u saxeexo waraaqdii. kadib markuu Jerry u saxeexo waraaqdii Tom wuxuu isku dayi doonaa inuu jaranjaradii dib u soo raaco, laakiinse waqtigii baa ka dhamaaday. halkaasna wuxuu geli doonaa naartii ayuu ku dhici doonaa. kadib markuu naarta ku dhaco Tom wuxuu u iman doonaa Ibliiskii amba malagii naarta joogay kaas oo ku cadaabaya dhari dab ku jiro. haddaba xalqadan waa xalqad aad iyo aad khatarteeda u wadata, loogumana talagelin inay carruurtu daawadaan. sidoo kale xalqadan waa xalqad laga madnuucay dhammaan wadamada carabta iyo sidoo kale wadamada diimaha caadiga laga isticmaalo. inta badan xalqadan markii ugu horeysay mooye mar labaad laguma arag dunida. xalqadanna waxay nooga muuqdaa Tom iyo Jerry oo fadhiya wadada tareenka kuwaas oo raba inay naftooda gooyaan. labadooduna ay ku wada jiraan dareen isku mid ah, dareenkaas oo ah inay labadooduba qiiraysan yihiin ayna rabaan intuu wareeg tareenku soo gaadhay si ay nafahooda amba qudhooda u jaraan. haddaba haddii aynu dib ugu yar noqono amba soo yar jaleecno sababta Tom and Jerry ku kulmisay inay labadooda murugoodaan, sidoo kale ay labadooduna damacsan yihiin inay isdilaan, oo aynu hore u naqaanay haddii uu Tom faraxsan yahay inuu Jerry murugaysan yahay, sidoo kale hadduu Jerry faraxsan yahay inuu Tom murugaysan yahay. haddaba bal aynu dib ugu yar noqono sababta ku keentay inay labadooduba tareenka isku dhigaan. halkan waxaad ku arki doontaa heshiis ka dhex maray Tom iyo Jerry kuwaas oo ku heshiiyey inay nabad ahaadaan wixii dambe. iyagoo wada fadhiya ayaa waxaa soo mari doonta birlab taas oo keeli doona. markuu ka helo bisadan wuxuu jeclaan doonaa inuu la qaato nolosha. sidoo kale waxaa ku iman doonta markastuu hadiyad u keeno inuu u keeni karo mid kale hadiyadtii ka qaalisan. sidoo kale wuxuu isku dayi doonaa inuu ubax u geeyo oo gurigeeda hortago, laakiinse uu arkaba ubax ka weyn oo loo geeyay ay ku dhex jirto.
soo kale wuxuu isku dayi doonaa Jerry inuu gaari soo kaxaysto laakiinse gaarigii mid ka weyn kana qaalisan kana taajirsan ayaa gaari kale u keeni doona sidaas ayaanu ku waayi doonaa mid uu jeclaa uu Tomna uuna tanaasuli doonaa halkan waxay nooga muuqatay Jerry isna saasoo kale ayuu mid uga heli doonaa markuu ka helo oo isku talagalo inuu hawsheeda gudagalo ayaa waxa uu arki doontaa tii oo la guursaday amba gaarigeedii arooska saaran halkaas ayuu isna nolosha kaga tanaasulaya isna go'aansanaya inuu nolosha isdilo saasoo tahay muuqaalkan isna wuxuu ka mid yahay muuqaalada aan carruurta loo ogoleen tareenka ayaan isku dhigaya waxaan loo yaqaanaa muuqaalada ku dhiirigeliya dadka inay isdilaan saasoo tahay dhammaan wadamada adduunka barkood waa laga xuray tanna waa xalqada saddexaad oo magaceedu yahay Tom's Revenge Tom oo argoosanaya halkan waxay nooga muuqataa Tom oo hurda sidoo kalena dushiisa saaran tahay amba ku xiran tahay dubbo weyn oo xarig hayo haddaba dubbahan haddii kamarada hoos loo dhigo waxa ag taagan Jerry oo halkan ilka waaweyn ku qoslaya oo aan ahayn kuwii dabciga ahayd ee carruurta loo soo bandhigi jiray haddaba Jerry ayaa xariga ku jiri doona Tom oo hurda Tom waxa ku dhici doona dubbihii weynaa amba birtii aad ka cuslayd marka birtu ku dhacdo Tom aad buu u qaylin doonaa waxaanu qaylin doonaa qaylo aan loogu talagelin inay TV-da ka soo muuqdaan sida caadiga ah qayladana waxay ku dhex jirtaa musalsalka kadib markuu qayliyo Tom halkan waxa ka muuqan doonta dibkiisii oo ay ku dhici doonto dubbihii weynaa kadib markuu dibkiisu ku dhaco dubbihii weynaa dibkiisu kala goy doona waxaana ka muuqan doona dhiig casaana kaas oo aan loogu talagelin muuqaal carruur daawanaya inuu ka muuqdo kalar casaana amba kalarada dhiig oo kale waxaana inoo muuqata Tom oo dibkiisu go'an yahay iyo sidoo kale Jerry oo ku qoslaya kadibna Jerry maqs ayuu soo qaadi doonaa isha ayaanu ka soo ridi doonaa amba toos uga gelin doonaa waxaana ka soo doodan doona dhiig aad u fara badan muuqaaladan looma ogola inay carruurtu daawadaan soo kale wuxuu isku bedeli doonaa shakliga Tom sidan baan isku bedeli doonaa waxa uu noqon doonaa mid ilaa noocan ayaana laga dhigi doonaa kadib marka saa tahay Tom wuxuu isku geli doonaa hurdo kale amba wuxuu isku dayi doonaa sidii uga argoosan lahaa Jerry haddaba Tom wuu seexan doonaa sidoo kale markuu seexdo waxaa dib u soo qaadan doonaa feesh amba sakiin Tom wuxuu ku kici doonaa Jerry oo la dul taagan feesh waxaanu soo qaadan doonaa Tom dib ayaanu soo qaadan doonaa labada lugood ayaanu dhulka kaga musbaari doonaa kadibna markuu labada lugood dhulka kaga musbaaro sidoo kale waxay nooga soo muuqata dhiig aad u fara badan ayaa inoo soo muuqda kadibna markuu dhiig inoo soo muuqdo waxaad arkaysaa afartii lugood oo haddana kaga musbaaray dhulka musbaaro caadiya la dhacay halkana dhiig aad u fara badan lagu sooray saasay tahay waxaad arkaysaa isagoo sidiisii ugu jeesjeesaya oo muuqaalkana uu yahay muuqaal aad iyo aad u khatar badan kaasoo isku dayay inuu sidii hore uga argaasto halkaa marka marayso xalqadan shaashadu way madoobaan doontaa waxaana arki doonaa Tom oo gacanta ku haya gacantii Jerry oo la gooyay haddaba muuqaalka waa kan isagoo saxa ama sidii caadiga ahayd Jerry halkan ayuu ku cuni doonaa Tom waxaan u jarjari doonaa sidii caadiga ahayd ee muuqaalka aynu ka arki jirnay haddaba xalqadahan waxaa soo saaray ninka lagu magacaabo John Daydash kaasoo ka shaqayn jiray shirkadda soo saarta filim kartoonka Tom and Jerry kaas oo cunsuriyad badan kala kulmay kadibna isku dayay inuu Tom and Jerry khaanada kaga saaro laakiinse xalqadahan markay soo baxeen kadib markii ugu horeysay shaashadaha soo galeen dib looma arag qaar waxaa diiday wadamada sidoo kale qaarna shirkadda ayaa sideeda u dhigaraysay sidoo kale waxaa jira muuqaalo amba xalqado la metelay 1999 sida 1994 xalqad la metelay oo aan weli la soo saaray taas oo lagu haysto waxyaabo kale oo kamid ah waxyaabahan halkan ku aragnay